الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaha khayrka jecel ee khayrka aan ku walaalownay. insha Allah maanta waxaan idin wadaa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan kaasoo ah qisas ku saabsan dikri cajiib ah oo ka mid ah dikriyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala loogu dhawaado. haddaba haddii aan u sii gudgalno barnaamijkeena qisaska ah, qisadeena koowaad ee maanta waxaa ka sheekeynaysa gabar waxay tiri salaad walba markii aan tukado 100 mar ayaan akhrin jiray. waxaan ahaa ayay tiri awal qof cariiri ku nool oo magaca farxadaba aan aqoonin. waxay kaloo tiri waxaan ahaa qof noloshii nacay oo dareemi jiray mar walba inuu nolosha ka dhacay. haddaba dikrigan markii aan akhriyay muddo bil ah, weliba aan akhrin jiray salaad walba 100 mar kadib. shanta salaad walba 100 mar ayaan akhrin jiray maalintii. shantaas 100 kama badin jirin. salaada subax markii aan tukado anigoo fadhiya meeshii aan ku tukaday ayaa waxa akhrin jiray 100 mar. duhurka ayaan tukanayaa anigoo meeshii fadhiyo 100 mar. casirkii 100, maqribkii, cishii kulli waxaa lazim ahayd meeshii aan fadhiyay inaan ku akhriyo shantaas 100 markii aan maalintii akhriyo. wax kale kuma dari jirin ayay tiri, si niyad ah ayaan u akhrin jiray. alxamdulillaah muddo bil ah markii aan ku celcelinayay laa xawla walaa quwwata illaa billaah oo ah xeelad iyo xoog cid leh ma jirto alle subxaanahu wa ta'ala mooye. adduunka waa un labo, yacni qofna inuu xeelad wixii ku isticmaalo xeelad ku mara adduunkan, qofna inuu xoog leeyahay. labadaas unba maanta adduunka wax ka noqon kara. marka qofka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala awoodiisa qiray ee dareemay xoog iyo xeeladba alla jeli ah inay u sugnaatay ee si niyad ah u dhahay Ilaahay ma dayacay. waxay tiri waxaan ku celcelinayay muddo bil ah, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nolosheedu waa bedelay. waxaan noqday qof raaxo dareema, waxaan noqday qof faraxsan. waxay tiri xitaa wajigayga iyo muuqaalkayga waa nuuray. awal waxaan ahaa qof bedelmay oo qofkii i arkaba uu i weydiin jiray maxaa kugu dhacay, miyaad xanuunsatay, miyaad jiratay. yacni anigii dhan waa bedelma ayay tiri. sidaan qalbiga uga murugeysnaa, sidaan qalbiga culayska uga dareemaya ayuu wajigayga iyo muuqaalkayga u ekaaday. laakiin alxamdulillah maanta waxaan ahay qof raaxa iyo farxad ku nool, qof xasilan. wajigayga xataa waa uu iftiimay ayay tiri markii aan akhriyay dikrigan cajiibka ah ee laa xawla walaa quwwata illaa billaah, oo micnaheedu uu yahay xeelad iyo xoog cid leh ma jirto alle subxaanahu wa ta'ala mooye. runtii waa qof si dhab ah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala isugu dhiibay. qisadana labaad ee maanta waxaa ka sheekeynaya wiilkan wuxuu yiri waxaan ahaa qof habeen iyo maalin heesaha dhageysta. aad ayaan heesaha u dhageysan jiray ayuu yiri. waxaan haystay samaacad aan dhagaha ka bixinin, habeen iyo maalin ayaan saas u dhageysan jiray. wuxuu yiri waxaan dareemay waddo wanaagsan inaanay ku soconin, laakiin markaan heesaha way i qabteen, waan la bartay, waan la qabsaday, xaraf ayaan u xifdiyay ayuu yiri heesihii. hees walba oo aan maqlo waan akhrin karaa. yacni waan bixiyay bas sidii aan u dhageysanayay habeen iyo maalin. habeenkii xitaa wuxuu yiri dhagaha ayuu igu jiro oo waan hees dhageysanaya ayaan seexdaa. markii aan seexdo kadib aan intaan xanuun dareemo dhagaha iska bixin jiray. nolosheedii sidaas ayay ahayd. haddii aan wadada maraayo meel kasto dhagahaas unba hees iigu jiri jirtay. wuxuu yiri waxaan dareemay inaan waddo wanaagsan ku soconin. waxaan mar walba isweydiin jiray anigoo heestan dhagaha igu jirto haddii aan maanta dhinto soo qiyaamaha la ima soo saari doono anoo hees dhageysanayo, waayo qof walba wuxuu ku dhinto ayaa lagu soo saari doonaa. wuxuu yiri waxaan dareemay inaan waddo khaldan ku socdo, laakiin maanan garanaynin waddadan khaldan ee aan qaaday, ee sanadaha aan ku socday, ee ka noqoshadeeda ay igu adag tahay. sidii aan uga laaban lahaa, sidii waddadan khaldan intaan uga taga waddo saxan aan ku qaadi lahaa. wuxuu yiri arrin waa igu culus tahay. wax markii aad la qabsato weliba wax shaydaan uu ku qurxinayo aad bay u adag tahay nafta iyo shaydaanka inaad ka adkaato. wuxuu yiri waxaan soo galay YouTube-ka, waxaan baaray muuqaalo aan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala in ugu hanuuniyo aan rabo, qisooyin aan dhageysto, barnaamijyo diini ama xaadarooyin. maalmaha ka mid ah ayaan waxa arkay ayuu yiri
sheekh ka hadlaya qisooyin ku saabsan xawqalada ama laa xawla walaa quwata ilaa billah. sheekha qisooyinka uu ka hadlayay si qalbiyan ah ayay ii taabteen. wuxuu ka hadlay dad noloshooda ay isku bedeshay xawqalada ama laa xawla walaa quwata ilaa billah. yiri anigana ma quusanayo, waayo dadkaasba ilaahay hadduu noloshooda bedelay, aniga ilaahay waa awoodaa in xumaantaan iga reebo oo nolosheeda bedelo. wuxuu yiri tilaabadii ugu horeysa ee aan sameeyey waxay ahayd dhagihii aan wax ku dhagaysanayay inaan iska tuuray, oo aan wixii hees taleefankayga ku jira tirtiray, oo aan bilaabay inaan akhriyo laa xawla walaa quwata ilaa billah. wuxuu yiri si uu shaydaanka ii qaadinba, salaad walba xilligeeda markii la gaaro ayaan weysaystaa, waan tukadaa, masaajidka ayaan fadhiyaa, waxaan ku celceliyaa laa xawla walaa quwata ilaa billah. keliya ilaahay waxaan kaga niyeysanaya in heesahan iyo xumaantan iga baabi'iyo oo wadada toosan oo ilaahay i mariyo. xoolo ilaahay ma weydiisanaynin, wax kale ma weydiisanaynin, keliya in ilaahay khaatimada ii hagaajiyo oo khayrka igu sugo, oo wadadan xun ee aan ku socdo ilaahay iga leexiyo wada toosan i mariyo iguna sugo. waxaan ka cabsanaya ayuu yiri haddii aan wanaagsanaado xataa inaan xumaanta dib ugu soo noqdo. marka ilaahay waxaan weydiisan jiray in wada toosan uu i mariyo uuna igu sugo ayuu yiri wiilkan. alxamdulillaah xawqaladeedii ayaan watay. isbuuci koowaadba waxaan dareemay in aan heestiiba u baahnayn oo ilaahay iga kaafiyey. waxaan dareemay ayuu yiri inaan wax walba oo khayr aan jeclaanayo oo ay soo jiidanayaan. waxaan laazima ayuu yiri quraanka, gaar ahaan suuratul baqara ayaan maalin walba dhammayn jiray. markii aan xawqalada isbuuc waday waxaan bilaabay oo aan ku sii tallaabsaday inaan maalin walba akhriyo suuratul baqara, anigoo culays igu ahayn, anigoo wax culays dareemaynin. waan waday, waan joogtay. alxamdulillaah maanta oo dhowr sano laga joogana intaan hal mar dhagayga hees geliyey maan dhagaysanin. ilaahay subxaanahu watacaala waa iga qabtay, wadadii xumeedna waa iga leexiyey. maanta waxaan leeyahay raatib xawqala ah oo markii aan salaad walba ka baxo aan akhriyo. sidoo kale waxaan raatib ka dhigtay ayuu yiri ama jadwal aan ka dhigtay akhrinta suuratul baqara maalin kasto inaan dhameeyo. wax culays ah iguma ahan ayuu yiri. qisadani xitaa maanta waxaa ka sheekeynaya wiilkaana wuxuu yiri waxaan dhageystay muuqaal ka hadlaya xawqalada, weliba anigoo degdegsan markaas oo meel u socdo oo degdegsan ayaan dhageystay. wuxuu yiri niyad ayaan waxaan gashtay in ilaahay subxaanahu watacaala awoodiisa aan marnaba la xaqiri karin ama aysan ahayn wax ciyaar ah. waan yaqiinsaday ayuu yiri awoodda ilaahay, waxaana ku celceliyey laa xawla walaa quwata ilaa billah. markii galabkii la gaaray maalintii aan arkayo muuqaal ka hadlayo xawqalada, weliba anigoo degdegsan ayaan arkay ayuu yiri oo meel u socdo. waan akhriyey si niyad ah ayaan u yaqiinsaday awoodda ilaahay inay dhab tahay, waxaan akhriyay xawqaladii ama laa xawla walaa quwata ilaa billah. wuxuu yiri waxaa jiray shaqo muddaba la imeermeerinayay ee la ilahaa biri maalinta damba soo noqo oo aad la imeermeerinayay oo aanba ka shakisnaa inay dad kale meesha geysan rabaan oo anigii la rabo in khadka layga bixiyo. alxamdulillaah galabkii markii la gaaraba shaqadii ayaa layga soo wacay, waxaana lii sheegay in aan biri soo sheekha galaya. subxaanallah ayuu yiri waxay igu noqotay qariib, marnama filaynin in galabtaas inta la isoo waco la idhaho shaqadii waa diyaar ee soo shaqagal. alxamdulillaah ayuu yiri si niyad ah ayaan u akhriyay xawqalada. markii aan maqlay waxaan iri wallahi waa dhab, awoodda ilaahay wax walba waa uu awoodaa. waana bilaabay ayuu yiri afka ayaan ku qabsaday laa xawla walaa quwata ilaa billah. galabkiiba ilaahay farajka waa ii furay alxamdulillaah. haddaba qofkii si dhab ah ilaahay subxaanahu watacaala u tala saartay isku dhiiba marnaba ma khasaarayo. ilaahay wuxuu quraankiisa noogu sheegay dadka tala saarto in aysan marnaba khasaaraynin. qofkii ilaahay tala saartana meel uusan ka filayn inuu ilaahay ka risaaqayo. wayarzuquhu min xaythu laa yaxtasib waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbuh. qofkii ilaahay tala saarto waa uu ku filan yahay. qofkii ilaahay tala saarto meel uusan filayn ayuu ka risaaqaa. bal haddaba qof uu ilaahay ku filnaada ayuu u baahan yahay waa cidna
marka ilaahay subxaana watacaala in la tala saarto aad ayay muhiim u tahay. waan filaya walaalaha sharafta leh muuqaalkeena maanta waxun inaad ka faa'iidi doontaan. wasalaamu calaykum.